Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan halkan idinkula wadaagi doonaa taariikhda Thomas Edward Lawrence, basaaskii weynaa, iskudubaridihii iyo ninkii u sababta ahaa in Cuthmaaniyiintii Turkiga ee xukumayay caalamul islaami laga saaro bariga dhexe oo idil, ninkii carabta ku kiciyay Cuthmaaniyiinta 16 Agoosto 1888 ayuu ku dhashay waqooyiga waddanka Wales ee Boqortooyada Midoobay ee Ingiriiska, waxaana iska dhalay aabe Ingiriis ah iyo hooyo kasoo jeeda Scotland. Waxa uu wax ku bartay jaamacadda Oxford, wuxuuna ahaa nin aad u jecel oo barta cilmiga taariikhda, gaar ahaan in wax lagu naqshadeeyo macdanta dusheeda sida Maarta oo kaleeto iyo wax la midka ah. Wuxuu kaloo aad u jeclaaday oo u caashiqay taariikhda qadiimiga ah ee Carabtu ay leeyihiin. 1909 waxa uu galay safar dheer oo dhan 1,100 mayl oo isugu maray Suuriya ilaa iyo Falastiin, waxa uuna sawirro ka qaaday ilaa iyo 30 qalcadood oo ah qalcadaha ciidamadu ay difaaca ka dhigtaan. Sanadihii 1911 ilaa intii u dhaxaysay 1914 waxa uu waqti badan geliyay oo aad u bartay luqadda Carabiga, waxa uuna dareen ahaan isku muujiyay oo iska dhigayay nin aad ula tacaatufay Carabtii oo markaasi ka sheeganaysay xukunka adag ee ay kala kulmaan Cuthmaaniyiinta, waana halka uu ka bilaabi doono hawshiisa shaqo, sirdoonnimo iyo galaangalka caskariyeed ee uu caanka ku noqon doono. Sanadii 1914 waxa uu ka qayb galay howl basaasnimo oo indho-indheyn ah oo laga fuliyay waqooyiga Siinaa iyo saxaraha halkaas ku yaalla, halkaas oo ay xukumaysay boqortooyadii Cuthmaaniyiinta. Laakiin safarkaasi iyo shaqadaas indho-indheynta ahi waxaa loo bixiyay magac kaleeto ah oo hubinaa cilmi baaris taariikheed. Isla sanadkaas 1914 waxa uu ku biiray wasaaradda gaashaandhigga qaybteeda juqraafiga, wuxuuna noqday sargaal mukhaabaraadka iyo sirdoonka ka shaqeeya oo loo soo wakiishay magaalada Qaahira si uu qayb uga noqdo dadaalladii iyo dagaalladii dowladda Britain ee kaga soo horjeeday Turkiga oo markaasi xulafo la ahayd Jarmalka. Waxaana farta laga saaray malaf iyo howl ah in uu ka shaqeeyo sidii qabaa'ilada Carabta oo nacayb badan u hayay xilligaasi boqortooyadii Cuthmaaniyiinta uu qayb uga noqon lahaa sida loogu kicin lahaa oo loo abaabuli lahaa inay ku kacaan oo ay kasoo horjeestaan boqortooyadii Cuthmaaniyiinta. 2 sano ugu horreysay, Thomas waxa uu bilaabay inuu la shaqeeyo xoogagga Carabta ee jabhadaha ahaa, kuwaas oo ku dagaalamayay dagaalada loo yaqaan ku dhufo oo ka dhaqaaq, jidgooyooyin iyo wixii la mid ah. 2 sano kadib waxa uu la taliye buuxa u noqday wiil uu dhalay hogaamiyihii kacdoonkaasi, ninka lagu magacaabayay Shariif Xuseen bin Cali. Thomas waxa uu noqday nin taktiikyahan ah oo ku xeel dheer farsamada dagaalka loo yaqaan ku dhufo oo ku dhaqaaqa ee looga soo horjeeday dowladdii markaasi loo yaqiin Cuthmaaniyiinta ee xukumaysay caalamul islaami iyo bariga dhexeba. Wuxuu isku dubaritay ciidamo yar oo jabhado ah laakiin tayo sare leh oo dagaaladooda gaadmada ku saleysan ay dhibaatooyin weyn u geysanayeen dowladdii Turkiga, dowladdii Cuthmaaniyiinta. Waxa uu Carabta loogu sheekeeyay in laga caawinayo oo waxa garab loo siinayo ay tahay inay ka madax bannaadaan boqortooyada Turkiga, yeeshaan maamul ayaga ay leeyihiin oo ismaamulaan. Taasi oo Lawrence naftirkiisa caatifad ahaan uu la qabay Carabta, laakiin xarumaha waaweyn ee Paris iyo London waxaa ka socotay shaqo kaleeto oo labadaas awoodood
waxa ay ka heshiiyeen sida uu noqon doono dhulka Carabta marka laga sifeeyo boqortooyada Cuthmaaniyiinta. Ingiriiska iyo Faransiiskuna waxa ay degsadeen sidii u kala qaybsan lahaayeen oo ay u gumaysan lahaayeen dhulalkaasi Carabtu ay leedahay. Intii uu shaqadaasi iyo dagaalada looga soo horjeeday dowladda Turkiga uu hogaaminayay qaybna uu ka ahaa, wuxuu ahaa qof ku labista dharka ay Carabta leeyihiin, wuxuuna si fiican ugu hadli jiray luqadda Carabiga ah. Xataa mar waxaa dhacday in ay qabteen ciidamadii Turkiga oo u gacan galay dowladdii Cuthmaaniyiinta, laakiin nasiib darro ma aysan aqoonsanin. Nasiib wanaagse waxaa mar kale isaga u suura gashay inuu dib uga fakado oo ka baxsado sida uu ku qoray buugga uu ula baxay 7 tiir ee xukunka. Ninkan shaqadii loo soo wakiishay waa uu ku guuleystay. Dhowr sano kadibna dabayaaqadii 1918 meelahaasi waxaa dhacday in dowladdii Turkiga ama dowladdii Cuthmaaniyiintu ay ku jabtay Bariga Dhexe iyo Jasiiradda Carabta, waxaana laga qabsaday ciidamo dhan ilaa 35,000 oo ugu dambeyn is dhiibay. Qaarkoodna waa la dilay, kuwana maxaabiis ahaan ayaa loo qabsaday. Hase ahaatee, asiga fikirka uu qabay oo ku dhisneyd aqoontii iyo khibradda u lahaa dhulkaasi oo u naqshadeeyay sida xuduudda loo dhigi doono marka Cuthmaaniyiinta meesha ay ka baxaan kadib, cidna kama aysan hoos qaadin. oo waxaa jira qorshayaal kale oo ka waaweyn oo madaxdii Ingiriiska iyo Faransiisku ay meel dhigteen intuu asiga shaqadan u joogay Bariga Dhexe, taasi oo ahayd inay kala qaybsadaan oo Carabta dib loo geliyo gumaysi ka xun kii ay ka cabanayeen dowladda Cuthmaaniyadda.